داوديال وركي national and international news هبين كان عاو هالكاسم كسو قبقبين وحن وجود بيا دنك أريمها بالشدة وأنت بدن أنجع لها إن أنا يرتبته وحيابه أنا إسلينا هاي بالشدة الصومالية وحبا نجا قلدم وايو أرنتن هبين كان عاو أن تهاونا يوحوي هذان الصوماليين هاي وحن كإيماني دول إلهي سبحانه وتعالى وإننا قلنا وتلقلي هذان الصوماليين هاي لكن قفك بن آدم كمرك ونمعذا وكشكرين وايو قفك بن آدم كمرك ونمعذا إلهي سبحانه وتعالى وكشكرين وايو قفك سوحا ولكل ما وحا أنهاتن أن كجرنا ده قفك السوء وحا وحن كجرنا ولول أرد رفاد لما نستو ده عرور لما هيو جنريشن نمبانا نمية لسكو من حريستو كوريه وايو نقبربرين يس تاسبانا هيست وايو إلهي سبحانه وتعالى حلقي الصومالي اللي جوي وحن أهين داد شرف بدن وحن أهين داد رنتي اسكون حريستا داد درس أياجري صاحب أياجري مجدة وهلا اسقي من جري قوري ما أنت عن جيران لقدبو داد درس كدنا ودعوني جري هبيا لسكوها وحولي بقو لسمي غيره وحيسكوها يا سوهبي هو يوين كدي بدي فريسن جرين ووالو وذا نسنجري ووالو وذا شيكي سنجري لأن يرد حافظ السدو كالوالو وذا هذا الجر ولا شيكي سنجري دي نبض بين قبني فرحت بين كنولين جامعة أي نقبني وحول بو إلهي سبحانه وتعالى هاتنا أنت أنك أرغنو أي هالكاس أنكو قبني وأنا كجرن عيرت أنا كجرن عير لما قاعد نجرن لكن وحير كفي عنا قبني واي وحن خمني دول آد أقرح بدن وما أنت بير له أو بدل له أو حول له أو وحول بله intaan ku shukrin weynay oo aan isbaab inay oo aan iskadab gooynay ayaan waxaan ka soo dooranay ama door bidnay inaan ceer qaadano ayaan ka door bidnay waxaan xasuustaa asxaabay muuska bariiska waxyaabaha dalaga sooga Soomaaliya dalaga sooga Soomaaliya qiimihiisa aad buu u jabnaa tusaale halkan waxaa idinku hayaa qumbo mardaaf qumbahan qiimihiisa waa 2 baan iyo bar waxa badan oo kale 2.50 2.50 ilaa $3 way halka xabo $3 haddii aad muqdisho tagto ama meel kasta Soomaaliya ku nool yihiin ka badan aad soo helaysaa true waayo qumbaha si natural ah ayuu koonfurta Soomaaliya uga baxaa laga bilaabo shabeellaha hoose shabeellaha dhexe jubbooyinka naarjiin ayay Soomaalida dhihi jireen aad u kaga baxaa si normal ah meel uu ku yaala dhibkan nagu dhacay markaa inaan haatan aan ka bixinno ilaa 2 baan iyo bar laakiin way soo yara shaacireeyeen waxaa waa la soo qurxiyay xitaa qorigii meelahan yaala qorigii aad ku bajisan lahayd lagu soo sameeyay kii lagu dhuuq lahayd lagu sameeyay inaad bajisan aad u fududeeyay intaas kaliya iyo qolofta laga soo fiiqay nimcadaas ayaan ku soo shukrin weyna kow gacanta waxaan ku hayaa cadaygan xaafaduhu ku yaala reality hada idin sheego caday hadda 50b ayaa laga iibinaya kanada waba ka dheeray waaba kala jibiyay tubisan kali wax waliba eeg nimcada waan xaajisan weyna nimcada waxaan ka dooranay colaad nimcada waxaan ka dooranay magac xumo waxaan ka dooranay inaan noqono dad adduunka ana laga jeclay waayo qof tuugsanay qof jecel mala labada gacan waxa la yiri tan kore iyo tan hoose mar waliba tan sareysa ayaa qeyr badan ministan wax dhiibaysa gaalan u imaanay duwaano la soo dhaweeyay waano la sharfay waano la qiimeeyay inagoo intaasina loo sameeyay ayaa Soomaaliya haddana waxaan sii noqonay dad iyaga dhexdooda is cunaya inside Somali people marka waxaan waynay wanaagii kalgacalkii raxmadii marka jidadka maraysa fiir qofka Soomaali waxaad moodaa inuu fiksan yahay haddaadan arkin ila yara eeg jidkaas markaad marayso
ama gaari aad wadato qofka Soomaaliga waxa laga yaabaa inuu adiba shaqo ka dhigto oo uu ku soo eego maanta oo dhan intaas wax kala ma xumaan kama laakiin waxaad moodaa in aan noqonay dad subhanallah iyagu isku mashquulsan tii gabar meesha marta waa la eega kii maalin weyd anoo dahabshiil tagay ayaan lacag diray laba oday meesha fadhiyay waxa iskaan baa lagu saaray hoos ab nin iska rabsho badan ah waxaan nabad sheekhay nabad ma jirtaa sheekhu nabad ma jirtaa way eegitaanka zaa'idka badan Soomaaliyana dib maxad noo eegaysaa lagu leeyahay laakiin magaalnimaan sameeyo waxaan nabad sheekhu si wax u jiraan waxaan ugu jiro wax la yiraahdo fiik waa fiiksana way noloshiina deganayn nolosha ma degana xitaa hadduu qofka guursado ama xaas uu leeyahay ma degan qalbigiisa ma degana maxaana dejin waay waayo waxaan ku soo shukrin weynay nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nasiib nimcada ku soo shukrin weyn dhul kasta oo Soomaali ay leedahay reality hada isu sheegno from north to south of the end dadka Soomaali dhulkooda ku shukrin waay nimcadan ku shukrin weynay aan darteeda ayaa haatan ayaan dhib ku jirnaa ubadka ma control kartid adiga naftaada ma control kartid dixaaskaada ma control kartid diintaada ma control kartid maxata marka arimahan ayaan haysto maxaana la gudboon waxaana la gudboon horta koow inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u laabano san u laaban karnaa aan iska dayno waxyaabahan tashuushka nagu jira inaga dhexdeena ba kala fiigsan kala fiigan waxa noo keenay siyaasadda qaldan ee Soomaaliya ka taagan aniga iyo adiga had daawanayso soo eegay horta cadawa la iska dhigay adiga daawanay eegay degdal hadii la eeg wax kala ka hadlaysa laga yaabay wala ninka Saalim Door horta yoo aha waxa uu ka yimid dawlad goboleedka ku jira runtii sheega ma ku mashquushan yaan isku qarid waaba dhaqankeena ma waxa wala isku mashquulsan oo yahay hadda waxaaba timid dawlad gobol qofka sirr magaalnimo lagu dulmara lagu ma dhahayaata niyaha waxaan ku weydiinayaa dawlad goboleedkeed ka soo jeeda war dawlad goboleed dhan kama soo jeeda aniga horaan sheegay waayo culayskaas ma bixaya adduunka intaan joogaa yar intaan ka degnaanay ayaa yar boosko lahay waaba la iga xoog horaaba loo xoogay ilaahay u barakeeyo qofkii qaatay runtina nolosha heerkaas maraysan haddii qofka bini'aadanka uu sabro waa uu guulaysanaya waan runtii waxaan ku sabri la'sannahay nolosha aan ku jirno waa runta عيبتنا ما عادنا واي مركز حفلات تكتو ستريت اوي وحرق ليهي نوالياته لا مد وهرتور هداد وخوي كسو جيدو قفك موكو وسي مشغوله وحلا ورخفك وارير وخوي داز اند ستوري لفتو دوناك هذا لكن شدده وحي بكد شدان تهيبه كوفرت الصوماليه ايو بنتلان فروم بنتلان الى اكسمايه يا تهي انت كسو جيده انت كتمت وهذا محاش خذا كلي انا هذا حفلة ام كولن هذا الكوك هذا ليس بمفهمه يدا كلها امنو اندرستاند سومالي قاعد انا نفهم سنين سومالي ذاك سوجي دور انا بوغي وحان كسو وحبرني اف سومالي لسكو براي او قاركين ما بكساينا ملينا وحان لو سو بري الفبيت هذا si wanaagsan akhriska qoraalka waxa buugaagtaas ay ku qornaayeen af qof kasta markaas u fahmay waana kana inta la hadlay qofka waqooyiga qofka koonfurta qofka meeshu ku yimaado iyo understand xitaa hadduu ku yimaado kana ka shaqada Soomaaliya laakiin in lagu mashquulo ma aha in qofku wuxuu yahay la ogaado teena ban haysata
mashquulka shaqada aaba ku adigu habeenkaasi shaqo ku jirto oo kaamirada haysata waxa isleedahay de wadaadka ugu roona oo xafladda programkaasi diiniga sameeyay ayaa intuu soo dugo wuxuu ku leeyahay warniyaha waxaan ku weydiinay adiga Saalim Dhoorasad isku raacisay markaasaan la sheekh ujeedada taas ma ahan inaad Saalim Dhoor aad raadiso ma aha de warka ii caday halkeed ka soo jeeda oo yaa tahay sheekh intuu xishooda iga tagay true weliga runta ka baqay whatever the person he is isaga u taala إله سبحانه وتعالى كل حساب تمام قبيل قلت كاس كل ما قال وإحنا كل ما سمعنا مركا نمعدي أيام كشجرين وين أصحابي هل كاس أيام خير تاس كذا بحياة وحرب أنت أنا كبي حنكون إن بيشن أكتوبر مركي هاتم دماتو والدين تربينا لهذا وحفر ما يكورسوين كأبرنتشيب أرديدا وودن كو إذل معها مقالة لندن أو كليه apprenticeship يدو waxay furmayaan end of this month of October waxayna furnaanayaan ilaa iyo bisha February oo inta ay qaadanayaan inta ay ka tagayaan marka wiilkaaga iyo gabadhaada haday guriyaha ku joogaan oo waxbarashadii tareenkii hore ay ka hareen de tareenkan apprenticeship-ka oo caruurtana at least la sii transportation waxay u baahan yihiin de caruurta kaas hala saaro لكن هالشيء أي ربع إذا إذن كجديه مركز إذا شاف هاي الصوماليات يسمكوا قصب ويل كذا ودوني إنه إسكجيفو إنه يقصبكوا كعذا وايو وحالي هذا الدجاج قور قبشة وحكم عنه هذا الدجاج لا أما الدور خفك السدو يقان كوفرت الدوران أنا دتك فوقنا الدجاج بيدهم هذا قورتك قبة الجلية ودارس ده ويل جد معنيس ويل جيفا ودوني إنه نرش إسكجيفو ayaad waxaad doonaysaa in uu ku aado koorsooyin ay dawladda intaasoo kun oo baan ay ku qarash gareynayso ama hooyo Soomaaliyeed inta ku soo wacday waxay ku leedahay wiilkayga ayaan koors u rabaa de hooyoy adiga maba garanaysid ba apprenticeship-kan iyo koorsooyinkan oo yaraan gaaray oo yaraan 40 koors gaaray waxyaabaha ka hadlayaan haddaad ba garanayna wiilkaaga sidaad ugu diri kartaa wiilkaaga Europe ku dhashay he speak English he know koorsooyinkan he know meesha laga raadsado just wuxuu u baahan yahay the boost up in wiilkaas la yar bushgaray la yiraahdo war wiili hodani kooguma jirto qolka aad jiiftide waa inaad hurdada ka kacdaa adna wax barataa wax barashada faa'iidadeeda dad badan oo haatan Europe jooga ayaa dareemaya macaanka leedahay waayo markuu wiilkaaga ama gabadhaada success ay wax barashada ku noqdaan oo ay jaamacadda ay soo dhameystaan oo had yihiin dad hiigsi leh ama yool leh oo ay rabaan inay gaaraan caruurtaasi waxay ka shaqeeyaan goobo badan oo waddankan Ingiriiska hooyadaasi at least waxa la ay ka kabayaan culays badan oo dhanka dhaqaalaha laakiin hadduu wiilkii ama gabadhii aad markaasi juhdigaasi aad ka u dheergelisay oo guriga uu ku dhex jiifo oo adigana sida neef aad ciida qalanayso kala aad bariis baastoon aad ku daldasho de wiilkaas hor uma socday gabadhaas de gabar waaba laga guursanay gabari de waa laga guursanay laakiin sakan aad isleedahay xafladda weyn u dhig 40 kun oo baan ila 20 kun oo baan UK asaguna shaqaysan arabtid gabar yar oo reer dhan ay soo korsadeen ay soo abaabsadeen oo ay diin soo bareen ay jaamacad ku soo dhameeyeen ayaad waxa la rabtaa wiil lazy oo ma shaqaysta ah oo wax barashada diido guriga ku jiifa way u lugeynaysaa marka gabadhaasi the question is that dadka iyagoo og in wiilashooda aysan ahlu salaad aysan ahayn ayagoo og wiilkooda inuu soo shaqaysan karo xitaa kaliinan uu soo samaysan karin wiilkooda in qolka uu degan yahay oo jiifa laga yaabo in barambare iyo qashan laga helo oo deerta uu yahay ayaa waxay ku leedahay hooy 25 jir aad gabar baan kugu daraya reerka inanta oo quruxda badan baan kugu daraya waa lugooyo number 1 way lugoynaya de inantaas la lugoynaya ayb عليك de wiilka ma shaqaysta hurdadka ka adiga adash si hooyooyinka marka qaarkood de in runta loo sheega wanaagsan aabaha markuu wiilka la hadlo way soo boodayso cilada war wiilka iga taaban da war wiilka ma wan aad ciida qalinaysa ba guri ku dhex jiif the question is that intaasi hooyada wuxuu sameeyay sometimes ku dabar jibi de xaajigan warka badan oo maalin kasta ku leh de cunugan wax sameey
dabar jabintaasi aad odayga dabar jabinaysid oday kale wiilka yara oo gurigaaga ku koray oo adiga aad dhashay tomorrow adigu ku dharbaaxaya waa ina dhacda wiilasha haatan hooyooyinka inta ugu jira hooyo they make hooyada iyada sad abgaraysatay hadda aan idin la hadlahay dad badan jiran oge hooyada meesha ku khaldan tahay idin sheego Yurub hooyada Soomaaliyeed ee Yurub joogta waxay ku khaldan tahay wiilkeeda oo ay og tahay inuu qaldan yahay waxbarashada diiday ayaa waxay leedahay wiilkeyga yaa laga taabanay aabaha muxuu doonayaa wax kale lama doonayo colaad kale kama dhaxayso wiilka aabiis colaad kale kama dhaxayso aabaha wuxuu leeyahay war nin ragaad noqon doontaa bariyaad guursan doontaa warniyo wax baro ama shaqayso waa colaad kaliya oo laga yaabo some houses of United Kingdom inay u burbureen inay u dudumeen sababtu waa maxay hooyooyinka istigay wiilku noqonaya war wiilkan aad istig ku noqonaysid haddaanan inta loo gelin dagaal ma jiro se laakiin inta loogu gala wiilka dhalinyarada waa in la mashquuliya very harsh wax baro kan samey guriga ku dhaq ku huufaray gaardanka ku jar laakiin wiilkayga lagama taabanay no لو ما المسدح مع الموضوع هذا هدليان ها ويلكي وبعد كوكرن تاي كان أنا دلي مرة بمدلي دونه مريك الصباح everybody see in UK everybody know Somali أبا رايد وليه إنه ويلكاس يتهوبر ويلكاس وقان جاري وحوجي سنة حوجي سمالك لكم بحناي مركا adoo ku salaabanaya ever afternoon hooy 10 baan u baahanahay 20 baan u baahanahay cinema ayaa u socda bakaas ma shaqaysto wax ma baranay you have to build wa ila dhiibta lacagtaas haddaadan dhiibi adigu dagaal kugu bilaaba markuu wiilka weyn uu dagaal bilaabo qolooyinka askarta yaryar oo guriga joogta iyagana waa ay dagaalamayaan marka hooyada waxa muhiim ah wiilka ay guriga ku hayso inay aabaha awood ay siiso oo aabaha uu tarbiyeeyo wiilka ama gabadhaas wiilkan gabadha iga reeb waayo gabar tarbiyadeeda hooyada ayaa ka mas'uula wiilka markuu qaan gaaro hooyo maxaad ka qaban kartaa nothing ma ka qaban kartid wiilka wuxuu u baahan yahay aadaabta in la baro wiilka hadduu maanta iska koro sida wan korayo kale iska koro iska weyn niman wiilal waaweyn arkaysan maskaxda ma dhisna waayo wuxuu ku soo dhax koray hooyo dhahaysa wiilkayga hal ii daayo wiilkayga yaa la hadlin wiilkayga san la yeelin wuxuu og yahay marka aabaha inuusan awood gurigaas ku lahayn hiduu aabaha wax kasta u necab yahay wiilkaas sameeynaya beenteeda miya soo jawaaba hooyada guriga iska burburisa wiilka dartiis caruurtii isaga la dhashay aaba la'aan ay sidaas ku dhigtay kii ay u dhimanaysay dhaysay maalin kasto wiilkayga ha iga guhaadin isagana wuxuu bilaabayaa inuu hooyadiisa guhaado waayo aabihiisa oo maalin kasta la gumaadayo arka la guhaadaya kadibna guriga sidaas ku burburan aad u yartahay in guriyaheena Soomaaliyeed waxyaabo intaasi ka weyn oo maanta guri uu Yurub ku burburi karo hal ii sheeg جعل السوق ورسد ويلك أنت أرداي مركزته قبل وجعله برفون كان وخرج بدن أنت لسه سعد أنت حبيبك وجعلها برفون كان كل وصل ده وجعلها يس يلافي مركب فرته اسم الجد برفونات آد خالي وقع يوكي يريس كانوا حالس كسينا كنتم بالحدة آدو يرى بيبي يا لهم لين إنه وين آدو يرى وكبير كالجعل كيسيداس لوgu soo dhisay oo barfoonka ahaa maxaa calaad keenay caruurtii koraya iyo hooyada soo istaagan aniga wiilka laga ma hadli karo wiilka wareego bilaabaya meelaha biskuleeta la taagan yahay meelaha timaha dheeraystay hooyadii aabi uu qalbi jabay hiigsibu aabaha sababtoo la tartamay rag isaga ficiisa ayaa suuq kula jira masaajidka aada ilmaha madrasada geynaysa waad soo celinaysa oo lagu arko wiilkaaga maalin kasto isagoo maasha sigaar ku cabay
أما الشيشة تاغن أما الدربية تاغن أما إسكولكي كتاغي سعال الحمى معه أبا هو حمرك هورك دقال ما أنت سعيد وكاس ويلكن هدو أبيه سلكر ويلكاسي نبات مكان سنة هدو سلكرين محلو بهاي وحلو بهاي هاي إن هو يداسي هو ينكسو ماذا ده هو ينجل عن باجر ويك ويك واه محاجل عيه واب اسك جلعيه إلى باجل عيه أود كرتيات ملا أود أي كوهنتو أو باور ويلكاسي أي كو كنترولشو ما قبته هو ينك قاركود هو ينك قاركود أنت كو قلعي خطر عندها لسو بدودين جير ساحب سانا لو فيرنا ما نقول لحد لاي هو ينك هو الصومالي أحفظ الله هذا مركي مرتدى بحن ألاقا قوينة هيركاس الصومرنا مركي مرتدى قريها الجوغان وداد كراشن لو كيانو مالنت هالمر إلاو مر أتكسو مرتد هو يد إيش اللي كان فيرنينو حتى مدرسين يسدد كل الجوغان إنها بودي لانجوج نقول هذا ساسا لو فيرنا مين الصحابة إسكان كسور كوكو دقيقة على الصعب هذا كوتا على ديتيشن كاي أدو مركا لا قبحو قريقة أي 10 لو مرنا هذا الإلهام محو حكمه مرتيا كو إيماني كان ويلكو انتو سكال حمرا ورهوانا قريق جوغا مكساي انت على أردويا انت بنونيا لقديرا عن ريسبكت مركا الصومالي هدان نهي دي نولشينا وحان كبدلنو انداسيت سيبا هبدقنك قريها كتاغن قريها وحيابا وبربران وعرورتا أنا قاعد دلنا دحدينا سوايسنا أو كلي هادو أمر كي ماذا قوني لكن هو يوين قاركود وديكتاتورس يقول ده ويل كاي قتابن ده كان مركا لما دليه ده كان مرد ما مسمينه ور كان مرد ما دليه سيد لكن إسناغو كوغو نقنا تمر هدادن أضيغان داعد أو كلها يور ويل كان وحان ربا إن أو ننرقاد نخدو أو بريت أو مديس أو دحقالي كرو أو لقر قرتمي كرو إيه لو بهاي ويلكا وإنو عدكر هذا نين جيسة عدنشا جيسي ما كان خريقات غير اللي بحسن كتاب تمام جيسي أنك هذا لا يحاول ويل جيسي أو communication skillك كو ناكسانو مركا لا هذلو نرق إنو كل هذا لا يقدر يميسد نرق إنو كل هذا لا لكن ويلكي أو أبيه أنا كتبوا برقادنين أو أنا مجور لقيت لجين أو أنا نجرني إنه أوسط كجرة أي جوري بربوري ويلك استريد أو أوتوماتيك سوق وقليه مركا عرورته يلا فوضي سنة نبكى وين أو صومالينا هايستو وحاوي عرورتي أو لفوضيس مركا وحن كسوقات apprenticeship كان هاتن بلا بني دوان أبليكيشن هذا أنا جماعة هاي بيرسونالي لكن أنت بدأ ويب سايت كدولة إلى هذا gov.uk أي آدان وآخرية وحي سو كرده هل كسان كاركا apprenticeship هذا ودن كاني the end of this month بلا بني إلا إيه بش فبراير أو أي قادنا يان أنت مركز للدوني مركا فضلا أديقون نخف وعن أديقون هبل السوعن أديقا ويلكا أما قبل هذا وإني هرددك كعان أو أي قلان ويب سايت كاسي وحي أي جعليهن إيراد سدان بسيط لكن سجامعوا محا ويب سايت انتو كويالا إيو انتان كهلا حريرا إيو نو gov.uk gov سبودير UK that's it معها إنجليز ترب بدن سبيلين بدن ومن بها أبرنت الشيء وكخرية وحلال وحس ورب وآية وصباحي مركب فضلا ويجا كسعنا مقرح بدنا محد مركب ودمنيسين واي هوي ويلو شلي أركي وحن هوي نلاش كورا وحيت القلب كل جد كنا واي يعني هوي حاو عرورت هذا قبله يقول شيء ذو يقول سده مركب وحن كوير هوي أذاك مسؤول السماء واي ما أذاك يقول كل جد رأت ستة ذكر يستر وهذا هو يوين كسم هذا لا بشيء متكود أي جوريها كل جد ودقنا هذا وللجهة إن جوري أي هالشو وان بتفهم إذا أو إني قبل هذا يودن كان كل شيء جور وين يدك أنت هو إذا لنا على ديبه إذا لنا عسك ديبه هو إذا ويلا خلا لو حرة
tomorrow راح laga yaabo inay meeshaas ay ku xijaabato subhanallah laakiin marka inanteeda ay la joogto hooyadeeda dhaqdhaqaaq walow madooyinka dambe ay sheeko aan qurux badnayn ay suuqa soo gasho dee sadohda lama jecla laakiin wax qurux badan ma waa hooyo waa ayeeyo caruurtaada dadku waxaas aaminsan qalbigooda ka saaran walow ay sadohyaal qaarkood iska yihiin clever iska yihiin jecel yihiin inay waxyaabaha qaarkood ay ogaadaan ama ay dabagalaan ama reerka interfere ku sameeyaan laakiin sida danta waxaato ayeeyada naftigeeda inay xisaabtanto dhahdo wiilkaada iyo gabadhu soo guursaday hadii hal isku celiya nolosha siday markaas ugu guulaysan lahaayeen habeenkan caawa waa habeen jimca ay soo galaysa maalinta birito waa jimca asxaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa daqiiqadaha khayrka badan ee ku jira saacadaha khayrka badan iraahda ee ku jira inuu ilaahay na waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa colaada haatan jirta waad la socotaan qof waliba dhigta ayaa u taagan caalamkii aan ogeyn ma aha caalamka colaad waxaa ka jirta aad u xanuun badan oo qofka muslimka iyo qof kastoo bini aadan ee runtii aad u saamaysa ummadaas haloo duceey ummadaasi maanta awood aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayn oo ay sugayaan ma laha laakiin midaan kuu sheegay hadduu iimaankeen uu yahay iimaan khaalis nadiif ilaahay subxaanahu wa tacaala hal qof oo anaga naga mid ducadiisu aqbalaya galabgalabkeenaba iska badan waxaan ahay dad because waxyaabaha qaarkood mararka qaarkood aan anaga samaynayno waxaan leenahay war salaadeena lama aqbala miya markaad nolosha ay jiq kugu noqoto waxaa isweydiinaysa what is going on in your life waa isweydiinay laakiin ina adduunkan imtixaan u joogtad la soco sidaas darteed xaalad adag ayay ku jiraan xaalad mugdi ay ku jiraan xaalad biyo laga gooyo ku jiraan xaaladu ilaahay og yahay marka ilaahay waxaad ugu toogtaan horta inuu mandar u keeno roob ay ku qaboobsadaan yaa rab ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryana ummadaasi masaakiinta anaga dadku calaada wadda we don't care laakiin hooyada dhimanaysa caruurta dhimanayaan waayeelada dhimanayaan guryaha la burburinayo waa arkeen waa ujeedna weliga colaada ma qurux badna inda colaad tan haatan ujeedin qofka soomaaliyeedu kuwaana qaado say caalamka haatan la isku dilay la isku baabiinay waxaan joognaa dhul qurba waxaan joognaa dhul runta xaaladiisa ay adag tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo fududeeyo noloshana ku jirno yaa rab ilaahna xafido ilaah subxaanahu wa tacaala waxaan ka barya khayr iyo wanaag caruurta ilaahna xafido ilaa dhulkeena dhul nabadeeda ka dhigo aniga saalim dhoora habeenkan caawa taariikhdu tahay 12 bisha 10aad ee sanadka 2023 lana mid 27 bisha rabiicul awwal ee sanadka 1445 wararkana national international iyo salkaas ayaan kusoo gabagabeynay arrimaha bulshada oo aan kusoo qaadanayo habeenkan caawa nimcadi maadaama aan xajisan weynay de wixii ka soo baxay mirihii ka soo baxay waa kan haatan u jeedno oo aad ku xanuunku u siiba dadkeena qurba jooga tan haysata qof waliba ogyahay inuu isliba bis qof kasta walwalba ku nool yahay walwalka naga dulqaado dabada waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan diyaarinay hadda ka horna idin la socodsiinay baagajyadii bisha barakaysan ramadaan sababta u qaadana wax kale ma aha waxa weeye caalamka diyaaraduhu aad bay isku bedelayaan maadaama ay isku bedelayaan bisha barakaysan ramadaan baagajkeeda waan diyaarsanay full month of Ramadan in aan markaasi aan insha Allah idin soo gudbino dhawaan runtina diyaaradda aan qaadanayno oo aan la soo heshiino waxa weeye Saudi Airlines direct flight qof kasta uu garanaya markuu direct flight uu ku baxay qiimaha in uusan runtii uusan fududeyn sababtan u sameeyno waxa horta alxamdulillah inta badan waxaan ka iibinaa dadka Asiaanka waayo ma gorgorisa badan anaga gorgorisana dile qofka Soomaaliyeed inta horta aad wax ka iibiso
intuu kaa lugoyna inta uu ku dhibayaa badan biriya lagu soo waca telefoon inta lagu soo sheega birita meel kale la tagaa waxa lagu leeyahay meesha ka raqiisanan aagna dadka ha dhibin go'aan gaar cimrada hada aad soo waxa waa cibaado ma aha muus ama maxaa lahaay coconut aad iibsanaysid ma ah war coconut kan waxa gadib hadda coconut kan soo gatay ama qumbahan markuu dukaanka yaalo oo qof Asian iibinayo ama nin cadaan dukaankiisu yaalo inta soo qaadato ayaa talki imaanaysa kadibna barcode ka salaga dhit ayaa laga siisanay aniga hadan keeno coconut kan hadda waxa weeye 2.50 qiimihiisa hadan aniga dukaan maanta furto aan coconut kan aan keeno ay hana timaado ama abshiro koobi ugu horeyso waxay leedahay Salim da ma 50 biba come on ma dhulki 50 gan joogna minis waxa weeye Soomaalidu ma garanayaan habkan la yiraahdo monopoly-ga oo dadkan ay isticmaalaan example dukaanka Bangladeshka markaad gasho boqolkiiba 80 dad Bangladesh ayaa wax ka gata dukaanka Pakistanka hadaad tagto hilibka gada boqolkiiba 80 dad Pakistani ayaa ka gata monopoly Allah waa isgarab qabtaan laakiin anaga dhibkeena ku sheegay travel aan loo furan Salim kontan igidin boqol igidin war diyaarada anay boqol igama dhibayso ninka Sacuudiyaanka oo hotel kale aniga igama dhimaayo waagi hore sida loo dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasriga marbu soo baxa waxaana la dhihi jiray ama lagu xamin jiray la dhihi jiray dadkan tuuga waay xajka lacag badanana laga qaadaa waa wallahi hadallada qaarkood ee Soomaalida markaan dhageysto iyo hadda markaan arko habkay Sacuudiga u sameeyaan waxaan dhahaa Sacuudiga they are right inay culayska naga dulqaadan inagii aan sameynayno wadaad wada diyaaradda hotelkii lagu tusay before aadan bixin baris akhli gal ah group aad qurux badan ayaa aflagaado ayaa ilaa iyo xili dambe dadka hadda ogaadeen marka inaan sameyn jirno wax runtii ay haatan xitaa Sacuudiga aysan sameeyeen marka dambi gasho dambiga laga goonay Sacuudiga soo baxay wiilii Maxamed Salman la dhahay yimid wuxuu yiri xajka anaga ba ka masuula Sacuudi hadana waa meeqa 10,000 ilaa iyo 15,000 oo ban adiga xaajiyada israacdan 20,000 oo ban laga raba anaga maxaa qaadan jirnay ilaahay idinku ogay 4,000 iyo 5,000 waayo 5 star hotel iyo 4 star hotel intan xajka aad joogtida yar markaasam waxaadan magaaladaba aadan ka mari karin dhiga hadal marka Soomaali hadaan nahay marka wax kasta fiir wax kasto wanaagsanaa intan lugaha ku dhufanay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala bedelkiisa na siiyay nimcadeena ku soo shukri weynay baanishkiisa noo siiyay bas wada dhalnay kulli caruurta Soomaaliyeed fiir kulli waa wada bas maxay bas u noqdeen because bas abuurana laakiin xilliga hore hada apple iyo banana aan abuuran lahayn apple iyo banana no soo bixla markaas lagu leeyahay ilmi caasima because guri laga dhax alalaasay oo la qaylinayo ayuu ku dhax dhashay nimcadii asha weyn war eega dadkan kala nalno diriskayga cid cadaan way ha isdagaalaan wax doonta ha sameeyaan indhaha guduud ha iska dhigaan danaynay ma wacdaan gabadha Soomaaliyeed wax yar hadii la isdhaho alla ba ayay naynay qabsanay ma naynay ma Soomaaliya ku hadla ba ayay ma garanayaan asxaabi wararkii national international kan caawal ka soo gabgeynay jimco wanaagsan haddii ay baraalka dhaw wararkani wararka la xiisa badan ee isku salaam habeenkii xalay barnaamijkii aan soo gudbin kuna saabsanaa ragga Soomaaliyeed waxaan jeclahay ما شاء الله كومنك أدب وخرح بدنا هالكاس على السيوض قفكي دوني مركا أرمها بالشدة سيب أرميها بينك حالي أنت تابرني قفكي دوني وإغلاسو قيب قالي كرا لايف أنا قو مركز اسكودايا دوام إن قفك لايف كسو قاليا ستوس السجنة دينعيقي إن لغا أركو وايو إن هرو مركا دينعك اللو قد هرو مركو والسعوداء استودي واب الديار مدوين يركبدنو الديار اسكاها ما بالاستعمالين لكن دوان ستوس أو لايف أيا وحان اسكودايا دونا إن دود وذاك كسابسن
dhibaatada na haysata ee arrimaha bulshada in aan ku soo geli doono anigoo Saalim Dhoore ah iyo dhammaan intii barnaamijka igala qayb gashay waxaan isku dhaafnaa oo bila tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi